maama Madiina Alkaal Cusmaan oo ah 9 jir kana mid ah warkacayaasha ku nool kaamka Jiliyaale ee magaalada Jowhar oo ii hadashay ayaa sheegtay in xalay abaar labada saqda dhexe ama 8 habeenimo ay u soo dhaceen rag qoryo ku hubeysan xilligaas oo ay u soo baxday suuli sidaas uga sii fogeen hooyga kaamka ay ka degan tahay isla markaana ay kala soo tageen kuna kufsadeen meel hooygeeda aan ka sii fogeen buushkaasi yimid oo uu yaqaanay qoqoldaas wata kuleeyahay jiid maxluuq waa uu soo kaxaystay oo garabka ayuu ugu soo qaaday wuxuu ahaa nin aad u xoog badan marka uu i keenay biraha warshada isnaay waa uu iska keeriday oo dhulka ayuu igu tuuray durbana wuu i kufsaday xilliga ma awoodin in aan khayl dhaamiyo oo qof da ah ayaan ahay waxaan fahamkaygii ama xisba dib u helay saakay aniga oo isbitaalka yaala isla markaana dhiig baxaya ay tiri maama Madiina Alkaal Cusmaan oo aan ku booqday isbitaalka gobolka Shabeellada Dhexe oo lagu dabiibayay aniga nin qoray wata ay qabtay way jiido hay hada u jiray riga u sii suuqa dib u sii maxan galay way ilmihiyo way u ku talisay aniga ayaa ii muso ali hirabti dadka wada jiifa aan leeyahay adiga farqad waxaan ku aniga taas ama li magalin way kala gay way u faliisay ma sheegi karay kaas buushkaasi yimid oo uu yaqaanay qoqoldaas wata kuleeyahay jiid maxluuq dhan jiidi way يبغى جيراني كاس أسوق فيه وين أسيجيد يسحقوا كلي وشيدي أنا أكوها أتاس أنا لا أمريكا يدي ذا شرب شرب قبل ده شيء مع مدينة وبربعين طلع هذا الشيء أي شرح ذي بعد فرشحون هو يضل لك عي وحين الشيء إنساكي شنت الصبح نمو أي معمدو كسو خالين قبط وكفسك وكدعي هو يذا يضو مسقول سوء أدي أثنين قرلي ناس قبصري أسكبصري أسقرب كسرتي markaan maaqno hooyo aan markaan dhahnane waa oo la baxay meel baan u aadnaan waynay oo meel oo washad aas geesti saaka subaxin baa laga soo qaaday buushishka u yimid hooyo waxay u soo baxday masquul albaabka agtiisa oo ku qabsaday dab waa afduubi garabka u saar nin qori lahowna anu ku habartii oo daba kacniyo inta una habeenimo waa wala kala waro meel aan u aadnaan waynay wiil oo iska socday oo garaashkiisa iska furinayo meesha oo la kulmiyayo hooyo meeshaan joogtay habartan waxay dhoosaa buushka Jiliyaale laga anka imaday dhoosaa hooyadan kaali soo wata saad bank soo wadana wax baana laga qabtay haddana wax kale ilaa hadda dhiigeed yaa socdo xiriir aan la sameeyay maamulka gobolka Shabeellada Dhexe ayay ku sheegeen in dhacdadani dad lagu tuhmayo loo soo qabqabtay isla markaana xabsigu ay yaalaan dhacdadani kursi ee caynkani ah ayaa ahaanaysa midii ugu horeysay ee ka dhacda magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle Cabdifataax Axmed Maalow Bulsha TV